سيدك دجال دجاج مجاهدة وحلو دجاجنا وحوها شقو تدرسوا حلال والله بدي وضع بشر وكلا بانون هاي سجال جيل سيد جيل وحشق شقان هيا وده كله صوب حيا ما بدينه أديقف كل أنتم أنت أدورت هديقف كاسو شابتنا ولا قش غيره هدون ولادنا ولا قش غيره isbedel baan wadnaayo dhismaan hadda go'd ku wadnaa qaybtood waa la dhisay qaybtood waa la wadaa qaybtood oo loo rajeeyay insha Allah in la dhiso si maadaama dadka iyo xoolaha iyo gaadiidka wax walba u badbaadaan soo saarka waxa ka horeeya service inaad wax hesho marka waa in dakhli badan loo quuro oo dakhli badan la geliyo oo maxaan ku raacay sidee meeshina wax looga loo intifaacsado dalkiina wax looga soo baxo dadkiina ay u badbaadaan أنا ديجان كحل جو عليه ديجان كيلو حلو دب لو عليو ضد كيلو يوبد بدل دخل في ربضان بمرة بتاع رات ماشان وحلوي مع دابا الشكل هي ماشان لا هذا هو يحلو دون تاو دهب دهب كنا دهب لو دسمية هي سيستم بالو خاصة وحوي عشيمة ماله تكور ماله رئيس وده هو كتير عم يشران مركا لالكنا هريتان كيسو هاد بإنت ضاعتها هاد بإنت وحوي يعني حسد كوكتشرين أي هريتان كيسونا كوكو بدانا مركا وحوي باهيين بس وحبرشو إن لو بلابو oo nidaamsan mana laha waa ciid baa wax laga soo qaadaya godaadka waxa soo qaadaya iska rogadii markay soo qaado waxa la geynayaa kala jarbaxa la yiraahdo oo togayaan meesheeda toga markuu yaal asoo afkaasu wuxuu ku leeyahay meeshii laga shubi lahaa jaraafad baa la darayaa bacdii baa lagu foostadii baa la gadiyaa bac baa lagu shubayaa caroobaadda markii laga gadiyo baa kala sharka lagu gurayaa waa la istaaraya waa qariiraya waa shiidayaa shiidkaas haddaba saarka la saaraya halkaasaa shaqshaq lagaga balaabaya oo lacag dahabkiyo seekaa ka soo baxaya waxaan ahay tijoorada milxo أمشي ماشى يربا يفرن وح أمشي أجمله وصاص وحنو جرتا وحجاري جاري أمرجنسية قاضة وحوسي السعودة لح ساعة تطبع ساعة وحن أبا هنا أمشي أم إسبيتال وين بان أبا هنا فهذا يد أوين واقع نقول إلهي باتك كسية حرس إلهي باسية ورضا إلهي باسية لكن عفمات وحواي وقالي سن وأن لهيك كريم عرور باكونول سرقوين باكونول عادي باكونول أنت سنة دريال عفمات ملك shirkadaha soo socda iyo kambaniyada tan iyo dadkan de wax maal gashanayay dalka ayaa dadka ay maal gashadaan waan boqolkiiba jeclay insha Allah bil karim oo dalka dadku ay fikir keenaan maskax keenaan iyadoo aan ajnabi la adeegsanayn ajnabi la keenayn laakiin dadkii dalka u dhashay ama deegaanka ahaa inay caqligooda maskaxdooda adeegsadaan oo ay dalkooda wax kala soo baxaan dalkuna dhowr nooc uu isugu qaybsan yahay wax soo saarkii macalinta waa aragtaan wanaga wadna wax soo saarkii beeraha iyo dakhliga dalku waa leeyahay oo biyihii buu leeyahay iyana waa ku dhex yaallaa oo webiyada waa ku dhex yaalla toogi waa ku dhex yaalla biyihii baa ku dhex yaalla dhul wax laga soo baxo oo dhulka ugu fiican ah wax lagu beeran karo bayana ka mid tahay in marka dadku caqligooda iyo maskaxdooda ay isugu keenaan dalkooda ay maal gashadaaneen beeyadii iyo fooxii wixii waa ku yaalli wax ka maqan dalkan ma jiraan kalluunkii oo dibca kuu jira 50 kilomitir 40 kilomitir oo laasqoray waa 60 kilomitir bay ku jirtaa ka yar waliba durduri waa 30 kilomitir bay ku jirtaa dhooftil waa kan simqsimqo waa tan diniga halka buurta la leedahay fuusho badda ku muuqata hadda buurta la leedahay fuusho badda waa ku muuqata kalluunku aan baraf u baahnayn aan la soo barafayn bad keenaysa isagoo hadda badda ka saartay oo freshkiisii ah oo aan xitaa soo qarin bad keenaysa waad ku dhixunaa waan ku dhixunaa hadda aan ku dhixunaa oo keenna marka nimcadaas ilaahay uu dadka siiyay isa saaran dadkii marka dalka u dhashay iyo dadka deegaanka iyo maxaa ku raayay dadkii dalkooda inay nimcada ka shaqeystaan